السلام عليكم أصحابتا ديرا نيوز عابا waxaan rabaa in la ii sheego waxa keena dildilaaca iibta iyo qolfaha ka soo fuqa anigoo wax uur ah lahayn. Thank you. sidoo kale adiga ayaa mudan haddii aan isku dayno dildilaaca iibta naasaha siiba midka xanuunka wata sababo badan ayaa keena waxa ugu muhiimsan sababaha soo socda. kow qaabka uu cunuga u nuugayo oo aan ahayn si habboon xoog iyo jiiditaan. labo saabuunta haddaan si fiican looga nadiifin. saddex cudurka loo yaqaano condidiasis oo ah cudur nabro iyo dildilaac jirka u keena oo ka dhasha bakteeriyada iyo jeermiska. sida la isaga ilaaliyo marka hore haddii aad tahay hooyo naas nuujinayso ilmo yar ku dadaal cunuga naaska si toosan inuu u nuugo qaabka uu u fadhiyo iyo qaabka uu afka u gashanayo. ka ilaali si xoog inuu u nuugo. caruurta qaar way jiidaan naaska xoog ayay adeegsadaan. sidoo kale marka aad iska nadiifinayso naasaha ku nadiifi biyo qandac ah. saabuunta inaad ka dheeraato ayaa fiican oo naasaha aadan ku dhaqin. haddaadan ku dhaqayso inaad si fiican uga meerto. sidoo kale biyo badan cab markasta ku dhaq biyo qandac ah. sidoo kale naasaha hawo ha qaataan oo ka ilaali inaad ku celiso markasta rajastiino siiba marka aad gurigaaga joogta. ilmaha hal naas keliya ha ka nuujinin, kala badbadal si midba midka kale uu uga yaraado cadaadiska. insha allah wax yar kadib waad ka bogsoonaysaa. daawooyin loo adeegsan karo waxaa jira boomaatooyin la marin karo marka ay dildilaaca bilaabaan. waxaa ka mid ah daawooyin dabiici ah. waxaa kaloo jira daawooyin dabiici ah oo naasaha dildilaacooda lagu daaweyn karo. waxaa ka mid ah saliid saytuun ama qalka tufaaxa ama baraf ama dacarta loo yaqaano olavera. mahadsanid. mar walba ka taxadar wax kasta oo aad isdhihi kartid dhibaato badan ayay kuu keeni karaan.